horta annagana la soo dhoweyn maayo marti ma nihin dalkeennii iyo dadkeennii caasimadeenni waan joogaa laakiin markaan meesha dhex marmarayo waxaan fiirinayay 2021 halka waa joogi jirnay xildhibaanadii hawiye oo tirada badnaa ee meesha nagu jirjiiri jiray meeshii aadeen baan garan waayo horta marka waxaan isgari malaha xamar waa meesha dalka laga kala goynayo markaasi kala u fiiriyo horta farriintayda aan waxay ku socotaa saaxiibada halka fadhiya iyagu kuma jiraan waa nala joogaan laakiin farriinteenu waxay ku socotaa dadka deegaankan oo ayadan dambe sida gaarka u sheegtay dalka waxaan u nimid horta midnimadiisa inaan ka shaqeyno xamarna in laga kala goyn baan rabnaa inaan ka shaqeyno haddii ilaahay kooxda yar oo arrimahaas ka shaqeynaysa horta waxaa ogaataan xamar cid iniga tegi maysa waa lagu qabsanaya haddii ilaahay dalkan waa la wada leeyahay midnimadiisana qof kasta mas-uuliyad baa ka saaran hadallada xanta ah anugu kama shaqayn karno meelaha looga sheekeeyo halka ka tegi mayno ilaa dalkan weji u yeesho sidii hore ee la yeeli jiray saasay ahayd waana arkaynaa dhammaan dadka waxgaradka ee halka jooga xildhibaanada halka jooga si gaaraan ugu hambalyeynaya ragga inaga maqanna war halkay ku dambeynaysaa ee hore u soo gaaraan leeyahay bannaanka ha istaagnin waxaa hadda ka socdaa aadan madoobe uu ku wado baarlamaanka shaqadii loo dirsaday ma aha shaqo aan loo dirsan baa halkaa lagu hayaa inta difaacdayna waa uga mahad celinayaa haddeertaana waxa weye waan isugu wada nimaadno hareerahan ka wada qabanaynaa bulshada kale cabursan oo islahayd malaha waa la iska kala irdhoobena waxaas intay iska dhaafaan siday ahaan jirtay cabdiqaybdiid baa halka ka hadlay runtii hadallo waxtar luu ka sheegay odanimada isagaan u daynaynaa laakiin marakan waxa weeye odannimo keliya ma rabtay xisaabtan bay rabtaa ma garata in la wada hadlo oo dalkan af loo saaro uu u baahan yahay madaxda hadda joogta villa soomaaliya iyo dadka ka agdhow waxay dhahayeen malaha madaxdu ma imaanayso niliga tegi may halkaan in la joogaya haddii la hadlo runtana waa la isugu imaanayaa dalkaana waa la wada difaacayaa midnimadiisa iyo horumarkiisa